السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا شيء الصوماليات ولا كي الصوماليات وكسر دو جنال قبل ديد تي في برتي يوتيوبك مقعيق وفاد حاج أحمد حسين قبل ديد وحنجعل حي إنا إذا لو داقو شاكو آدي أو حساب بدن آدي نحو أحمد aad waaye aragnimo aad noloshaada ku kabtid aad ka qaadatid maadaama sheekooyinka iyo daawashada filimaanta ama akhrinta buugaagtu ay yihiin kuwa maanka koriya halka cuntada iyo cabitaanka biyaha ay yihiin kuwa jirka koriya haddaba korinta jirkaaga iyo korinta maskaxdaada waxaa muhiimsan mar walba korinta maankaaga iyo aqligaaga si aad u noqotid shakhsi maareyn kara noloshiisa maalin walba haddaba sheekadan aan jeclahay in aan idinla wadaago aniga ayaa qoray waana mid malaawaal ah si walba oo sheekadani ugu ekaato dhanka magacyada ama dhicitaanka qiso waa mid lama filaan ah haddii aad qof ay saamaysay aad noqotid ama sheekada dareenkeeda aad adigu iska dhex sawratid inoo gudagal amran sumayo fartuun iyo caaliyo waa afar gabdhood oo saaxiibo ayna ka dhaxayso kalsooni heerkeedu sareeyo waxayna ku nool yihiin magaalada Nairobi gaar ahaan xaafadda Islii waxaa gabdhahan u kiraysan qol ay kirada wadaagaan dhammaantood waxaana looga soo biilaa dibadda oo waxay qabaan rajo dhoofitaan dibadda ah balse muddada ay qaadan karto laga sii hordhici karin waxaa u shaqeysa gabar ah Kenyan laguna magacaabo Pamela waa gabar qoys danyar ah ka dhalatay balse leh hadaf fog oo jecel in ay wadanka Kenya ka noqoto madaxweyne haddii uu waqtigu u saamaxo hal sano ka hor waxay dhammaysay dugsiga sare iyadoo heshay darajo aad u wanaagsan oo ah B+ alceliskeeda waxayna ku haminaysaa in ay ka mid noqoto maalin uun ardayda jaamacadda Kenyatta oo ah mid ay ku hamin jirtay ilaa fasalkeedii shanaad ee dugsiga dhexe Pamela lacagta ay shaqadan ka qaadato waxba kama cunto way urursataa si ay jaamacadda ugu biirto aroortii hore ayay shaqada soo gashaa abaaro 8 subaxnimo waxayna tagtaa galabtii 4 galabnimo shaqada ugu muhiimsan ee ay gabdhaha u qabato waa dhaqidda dharkooda iyo nadaafadda guriga iyo karinta qadada afartan gabdhood ee saaxiibada ahayd waxay hurdada ka soo kacaan kowda duhurnimo qadadii oo bisil oo jikadana ay Pamela wax ku akhrisanayso maalin maalmaha kamid ah ayaa Sumayo waxay ku tiri Pamela mar walba wax ayaad akhrisataa maxaad jeceshahay inaad noqoto mustaqbalka Pamela oo dhoola cadeynaysa ayaa ugu jawaabtay waxaan jeclahay inaan Kenya ka noqdo madaxweyne ama wasiirka waxbarashada si ay caruurta Kenya oo dhan u helaan waxbarasho lacag la'aan ah ilaa heer jaamacad Sumaya intay aad u qosashay ayay ku tiri waxaan ha isku daalinine iska guurso ee iska ilmo dhal Pamela ayaa ugu jawaabtay xitaa haddii aan guursado wax waan baranayaa waxayna u sii raacisay intay dhammaantood isku qabatay idinku maxaad wax u baran weydeen Sumaya oo ku hadlaysa af Swahili ay jijibinayso ayaa ku tiri markaan Yurub tago ayaan baran doonaa inta ka horeysa maskax aan wax ku barto ma hayo Pamela oo qoslaysa ayaa tiri Kenya wax ka sii baro adigoo wax yaqaana tag Yurub si aad shaqo fiican u hesho qosolkii Pamela iyo Sumaya ayaa waxaa maqashay Caaliya oo soo abaartay dhanka jikada oo sheekadii dhankeeda kala jaan qaaday Caaliya ayaa ku tiri Pamela adigu maad noo keentid macallin waxna bara Pamela ayaa si fudud ugu tiri aniga idin bari kara waxaad rabtaan xisaab af Ingiriisi iyo Swahili idinku lacag isiiya kaliya Sumaya ayaa si qoorsi leh intay u eegtay Pamela ku tiri saaxiibteed Caaliya af Soomaali adoomaydan maxay taqaanaa iyadaaba booyaasa ah Caaliya ayaa qosashay markaas Pamela wax shaki ah ma gelin iminka waxaa ka soo wareegtay 6 sano sida saacadu isu guraysay Pamela waxay dhamaysay jaamacadii waxayna baratay cilmiga xiriirka caalamiga ah waxayna ka shaqeysaa shirkadda Safaricom Amran iyo Sumayo wali waxay joogaan Nairobi halka Caaliyo ay Soomaaliya ku laabatay saaxiibtood Fartuuna
dhoofkii ay muddada sugaysay markii ay weyday ayay u tahriibtay Liibiya waxayna ku dhimatay saxaraha intaysan Liibiya gaarin. Amran ayaa taleefankeedii gacanta waxa iskaga xiray PUK waxayna caawimaad u raasatay xarunta taleefanada ee Safaricom ee xaafadda Islii waxayna si lama filaan ah ku kulmeen Pamela oo ah maamulaha guud ee xarunta waxayna ku noqotay filan waa gabadhii shalay iyaga booyaasada u ahayd oo maanta maamule ah. Pamela ayaa si wanaagsan Amran u caawisay kana wareysatay xaaladooda. Pamela markii ay Amran u sheegtay in ay fartuun dhimatay aad ayay u oysay waxayna u rajaysay janno. Amran ayaa gurigii ku soo laabatay iyadoo murugaysan waxayna ku tiri saaxiibadeed Sumeya walaalay qoftii inoo shaqayn jirtay ayaan soo arkay maanta Safaricom ayay ka shaqaysaa iyadaana xarunta dhan maamusha. Sumeya oo ahayd gabar aad iyo aad iskula weyn ayaa ugu jawaabtay saaxiibteed Amran walaalay walle naagtaasi buugaagtii waaweyneed waa ku faa'iiday inagu maxaa imika haynaa. Amran ayaa tiri 12 sano ayaa Nairobi joognaa wax aan hayno male Yurubna tagi weynay waa inaan wax baranaa. Sumeyana way ku raacday. Asxaabta sida tooska ah sheekadan hablihii kala hanka ha ula socotay intaas ay ku egtahay. haddaba sheekadan waxaa qoray codeeyay anigoo ah Fuad Xaaji Axmed Xuseen Qabyaladeed. waxaan jeclaan lahaa qaybta faallada ee YouTube channelka ama Facebooka inaad nagula wadaagto aragtidaada sheekadan ku aadan. waxaan idin ballan qaadayaa sheekooyin kale oo kuwan lamid ah oo taxana inaad channelkayga YouTube-ka aad kala socon doontaan hadduu eebwanaydmo. fadlan subscribe deh si aad mar walba u heshid muuqaalo qurux badan iyo sheekooyin ku xiiso geliya noloshaada la taabta. mahadsanidin.